su-aasha koowaad maxay tahay calaamadaha saacadda ee weyn midda ugu horeyso? calaamaatu saacati alkubraa, calaamadda ugu horeysa maxay tahay? waa soo bixidda masiixu dajaal. su-aasha labaad muxuu yahay sheyga koowaad ee allah subxaanahu wa tacaala uu abuuray? wuxuu ahaa alqalam. qalinka ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray ugu horeeyey. su-aasha saddexaad waa kuma saxaabiga dhaqay nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu geeriyooday kadib? wuxuu ahaa caliyu bni abi aalib radia allahu canhu wa ardaah. su-aasha afraad dhamaystir aayaddan qur-aanka ah qeybta ka maqan. axala allahu lbayca wa xarama alriba. su-aasha shanaad muxuu yahay sheyga koowaad ee meesha koowaad ee ay ka baxayso ruuxda jirkaaga marka aada dhimanayso? waa adraafu lqadameyn ama lugaha farahooda ayaa ugu horeeyo meel ay ka soo baxda nafta. su-aasha lixaad muxuu yahay cadaabkii ugu horeeyay alla ku soo dejiyey qowmu luut? wuxuu tirtiray indhahooda, nuurkii baa laga qaaday. su-aasha toddobaad waa kuwa loo oofinaya ajrigooda bigayri xisaab, yacni xisaab la-aan dadka ajrigooda ilaahay subxaanahu wa tacaala u oofinayo waa kuwama ama waa kuwee? waa alsaabiruun, kuwa sabra weeye. su-aasha sideedaad maxay tahay safarkii ugu dheeraa ee qof bani aadama uu galo adduunka? ee taariikhda lagu hayo? al-israa walmicraaj weeye. nabigeena galay sala allahu calayhi wasalam ilaa 7 samo midda ugu sarreysa la geeyey. maxay tahay geedka ay cuntay maryamo markay umuleysay nebi ciise calayhi salaam? waxay ahayd shajaratu nakhiil ama timirta, geedka timirta. su-aasha 10aad muxuu yahay sawdka ama codka ay maqlayaan dhammaan khalaa'iqda oo dhan marka laga reebo insiga iyo jinniga? waxaa weeye suraakhu ahli lqubuur, dadka ahlu qubuurka dhawaaqa ka soo baxayo ma maqlaan labadaas. su-aasha 11aad maxay tahay suuradda allah subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay yacni curuusul qur'aan, qur-aanka
curuuskiisii midda lagu magacaabay waa tuma, waa suuradee? waa suuratu raxmaan. maa shaa allah. su-aasha 12aad, muxuu yahay xukunka jihaadka ilaahay dartii loo jihaado muslimiinta dushooda markii uu u soo galo cadowgii magaalooyinkoodii uu soo galo cadow? waa fardu cayn, yacnii qof kastuu waajib ku yahay. su-aasha 13aad, maxay tahay salaadii ugu dambeysay ee uu dukaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaan la oobsanin horteeda? waxay ahayd salaada subax. su-aasha 14aad, qaala allahu tacaala dalika ta'wiilu maa lam dhash calayhi sabraa. meesha wixii ku jiray baa la iska rabaa. tasdiic. maa shaa allah, tasdiic baa ku jirtay. su-aasha 15aad, muxuu yahay ismiga ama magaca ninka hayo jannada furaheeda? khaasinuljanna. malaga haya magaciisa waa muxuu yahay? waa maxay? waa ridwaan. su-aasha 16aad, maxay tahay suuradda u shafeecayso ninka akhrinayo ama qofka akhrinayo maalinta qiyaamo? waa suuradda la yidhaahdo suuratulmulki ama tabaarak siduu nin walba u yaqaano. su-aasha 17aad, maxay tahay zawjaadka nebiga midda ugu yar sala allahu calayhi wasalam? caaishata bay ahayd radia allahu canha waardaaha. su-aasha 18aad, maxay yihiin labada malag ee loo xil saaray inay su-aalo weydiiyaan oy ciqaabaan qabriga dadka ku jiro? macnaha su-aalna inay weydiiyaan, ciqaabaanna. munkar iyo wanakiir ayaa la kala yidhaahdaa, munkar iyo nakiir. su-aasha 19aad, muxuu yahay xayawaanka allah subxaanahu wa tacaala uu ka abuuray shaydaan ee xalaalna ah in la cuno? aljamal waa geela. su-aasha 20aad, waa imisa arkaanulxaj tiradooda? tiirasha xajka waa meeqa? waa 4 tiir. su-aasha 21aad, maxay tahay salaadaasoo aan rukuuc lahayn dhexdeeda, sujuudna aan lahayn? maxay tahay salaada aan rukuuc iyo sujuud midna lahayn? waa salaada salaatuljanaaza, yacni salaada meydka lagu dukado weeye. su-aasha 22aad,
waa imisa cadadka ama tirada asmaa ullahi alxusnaa magacyada allah subxaanahu wa tacaala. waa 99 magac jala jalaaluh. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe ku samayso, like-tana aada riixdo, siina sheer garayso si dad badan ay uga faa'iidaystaan. waad mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.